بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. اسكول كان وككوبان يهي 8 qol oo isugu jira 6 galaas oo mid walba cabirkiisu yahay 6 mitir iyo 8 times 6 iyo hal qol oo wuxuu yahay bakhaar oo wuxuu yahay 5 times 6 iyo hal qol oo wuxuu yahay 4 times 6 oo wuxuu yahay xafiis 8 qol ayay u qaysamaan iskuulkan aan dusha ka sawiray hadhow hadii Allah uu ogaado waxaan idinka tusi doonaa hadii Allah insha Allah ta'ala gudaha ayaa idinka tusi doonaa qol iyo baarto iyo insha Allah ta'ala inta uu ka kooban yahay gudahana isagoo sawir ahaana oo muuqaal ahaana ayaa insha Allah ta'ala idinka tusi doonaa insha Allah ta'ala iskuulkiina waa taas insha Allah ta'ala sidaad ku indheena insha Allah ku arki doontaan insha Allah ta'ala galaaska koowaad kan labaad kan saddexaad kan afraad kan shanaad kan lixaad lixdaas waxa weeyaan waa 6 galaas cabirkana hore aan ku sheegay insha Allah ta'ala waxa weeye qolkii wuxuu ka kooban yahay 8 lagu dhiftay 6 8 times 6 ayuu ka kooban yahay lixdaas qol waa 6 qol oo isla leeg weeyaan qolkan dhexe waxa weeye waa qolkii bakhaarka ah weeyaan kan geeska ah oo u kooneeyana waxa weeyaan waa qolka xafiiska ah oo lagu talagalay in iskuulka laga maamulo hadii Allah uu wado ogolaado اوكي وهذا العيال كده فوق معناته واحد لها حد واحد يقول لها هنا ارض وغيره تصمت وكده عندنا ما هو حاجه لين على هسه يساك oogada wareega ah waa konton lagu dhiftay konton weeyaan masaaxada uu ku fadhiyo iskuulka dhex ka dhigka ah oo idin muuqda waxa weeyaan 32 26 weeyaan masaaxada ballaaran ayuu leeyahay deeqa ballaaran waa dheeraysan yahay oo dhirtii waa ku beeran tahay sabbaha wana ma ilaahay maadis weeyaan Allah ta'ala marka qaar ay ardada iyo macallimiinta iyo insha Allah qodii markaas ama waalidka qodii tamaada ay ku nasato oo abaar ku raaxayso way jabinkaan insha Allah ta'ala talagalkiisu وبركد هوسقود بيه ayaa noogu jira kadib markaan ka fikiray insha Allah ta'ala magaalada ee booyad joogta lahayn oo biyaha noo dhaameysa waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu nagu ilhaamiyay inaan noqono barkad hoosuqod ah oo aan kaga faa'iideysano majaroorka iyo mooska rabaaniga ah oo ay biyuhu noo soo maraan si ay inta qaar roobku yimaado ay barkada noogu buuxiyaan oo aan biyaha u faa'iideysano wa insha Allah ta'ala banaanka ayuu ka soo qabanaya biyaha kadibna barkada ayuu ku shubayaa si uu mataqaana aan uga faa'iideysano biyaha banaanka naga maraya insha Allah ta'ala waxaan u talagalay insha Allah ta'ala hatta saxankan waan gelinay maayaan maxaa yeelay riixa iyo urka ka soo baxay ayaan deedeynaa insha Allah ta'ala mas'uulahana waa kuwii magaalada sidii loo asriyeynay maadaama Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa ay insha Allah ta'ala khayrkaas ay noogu deeqeen Nur Foundation Allah geedka ayaa inta taageeray masaahadiisa loo dadaalay مثل هذا القوية والقوية لم مثل القوية والله اليوم سيدات مثل الأولى الحمد لله رب العالمين واحد كراس ما جرينا هذه أولى على يسير يكون كرسي أي جرينا الله يسير كرسي وحاجنا يسير كرسي يسير كرسي لا بعد ما نقول كذا فرنسا وأخذ يا سلام لا بعد شوي أشوف يا سيدي ممكن غربة أنا ما قبل إن شاء الله تعالى فرنسا كذا كل صرف إلى فترة وإن شاء الله تعالى كذا الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله تعالى بشير وحلينا فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد waxaan salaamayaa dhammaan waalidiinta ka soo qayb gashay xalfadan dhageystayaasha iyo ardayda iyo martida sharafta mudan. waxaan rabaa halkan inaan ka soo jebiyo barnaamijyo idin soo diyaariyeen ardaydu waxayna ku bilaaban doonaa aayadaha quraanka kariimka waxaana inoo akhriyi doonaa ardayga magaciisa la yiraahdo محمد علي محمد فليتفضل مشكورا. محمد علي محمد فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لقوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. إلهي خيرك أبا المريء آياتها قرآنك أي ولكن نكد الأخير حضر وحينا كحي دون دعاء الأمساء وحانينا أخي دون أرضي قليل هذا مسعود عوالي أحمد فليتفضل مشكورا. أمجينا وأمجى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمجينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور. لا خيرك أبا المريء وحانينا كحي دون مجموعة ناشيد تفضلوا مشكورين فليتفضلون مشكورين جميعكم. إذا
الواجبات وأداء الواجبات. لا خير كامل مري وحنا نكحي دون موضوع كتاب تعليمته ونوقف بحضور اللغة العربية وحنا نأخذ دون أرض اللي يراقه عبد الحافظ عبد الله علي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وعلم آدم الأسماء القائل في كتابه العزيز اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. وقال أيضا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد آبائي وأمامي وأساتذتي وضيوفنا الكرام اسمحوا لي أن أقول أمامكم كلمة على فضل العلم والعلماء لعل الله أن ينفعنا ويهدينا على طلبه. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والعلماء الذين يعرفون العلم الشرعي هم الذين يخافون ربهم لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا سلك ظالم العلم طريقا يطلب به علما سهل الله به طريقا قربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبدى به عمله لم يسرع به نسب. رواه مسلم وغيره. واكتفى على هذا القدر وجزاكم الله على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ينعينو كأنفعه وأنا ذا أولا كان نسيه وحانا إنو حيقي دونا موضوع كصابتنا قونتا أو إنو بحضور اللعب ويجنجلش وحانا إنو أخري دونا أرضي اللي يرادا عبد العزيز عبد الله عثمان فليتفضل مشكورا. عبد العزيز فليتفضل مشكورا. Topic about education. First of all, praise be to Allah who allowed me to appear to you. I am greeting at this well-populated area, ladies, gentlemen, guests, audience, spectators, organizers, and my dear teachers and other folk. Around here, peace of Allah be upon you. After my best greeting, which is frankly, humanly, fantastically, humanly, respectfully, loyally, and considerably. Towards you, I wanted to say something about education. Education is the key of everything, and the ignorance is the enemy of life. Where the education is the light of life. So your parents bring in to build your children to build in primary school as to be a doctor. Finally, thank you. لا يكان خيرك أبا مريم وحنا نكون حقدونا مع سير الناس الديارية ولكن عبد الحكيم يوسف عيسى عبد الحكيم فليتفضل مشكورا. Two foundation. Nidaam kainoo wada niyadayga raacday aniga nugul baynoo wada naruure dhowraya naqay soo gaaray degmada midaan idigoosan iyo nimca tahay eebahay isqaad ka ilaaliyo ardayda ku nuursatay foundation ay
inaad wada nabad gashaan aqoonta ku nuursataan nasiibkaad beegsataan naabkaad maalmartaan naxariisteeda iyo nimcada ku nagaataan Nuur Foundation ha guulaysto ilaahay khayra ka abaalmariyo waxaana inoo ma ogtahay in dowladda carbeed in ay soo saarka badan muuska inay tahay Soomaaliya ma ogtahay in dadka kala bar ay ku nool yihiin qaaradda Aasiya ma ogtahay wabiga Ibrahim inuu ku yaano wadanka Lubnaan ma ogtahay in geelu ku keedsado biyaha kuruska ilaahay khayra ka abaalmariyo waxaana inoo ku xigi doona ma sheegi kartaa waxaana inoo akhriyo doona Maxamed Axmed Salaad iyo Cabdiraxmaan Dahar Axmed فليتفضل مشكورين sheekarta gobolka bari wuxuu ku tiirsan yahay hawa ganacsi iyo kalluun sheekarta afarta waxaan hooyanahay hawa nabi aadan calayhi salaam hawa calayhi salaam iyo wankii lagu furtay nabi aadan iyo hashii nabi saalax ma sheekarta ninkii ugu horeeyay qalbiga ku qora hawa nabi idriis calayhi salaam ma sheekarta idriis iskoolkan hawa Nuur Foundation ma sheekarta hal naam ay ku saabsan aqoonta hawa aqoon la'aan waa iftiin la'aan ma sheekarta hal waxa jannada fiican hawa ilaahay raali ahaanshaha leh sheekarta toban lix ay ku saabsan caanaha hawa culid haruub haan catir dambar dhay labeen xamto barax suusi iyo garoof inta ayuu ka eegay barnaamijka inoo soo diyaaray ardayda dhigata iskuulka Imaam Bukhari haddana waa dhinacayo macallimiinta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمان ولياشة وغواشة وحقرتك ضيوف تشرفت لك ورحمة الله تعالى وبركاته انت أصدق تلك هوش وأخبر شنون هذا مرحبا وحي صمرت مرحلات فربضا وقت فربضا وقت عصوبة وقت برشو انت بدن أو صدر سنين وقت هذا اللي جوه تويرس دلورو سلبيشة ويحيو فكرين بلنا بنبدأ بيحيو الجهلية بلنا وحنا غرطان ماشي كوادي مركا عمنا سارين إن لغفر دكسي أي يوم مركا برامج كيسا يهوشيسا أو فن عدت على خرش أنا الرجل أسوأ مثل وحنا بطبلي hawshaasi waqtigaasoo soo dhaartay marxalado fara badan runtii aadadhig fara badan soo martay waqti waxay soo martay 150 arday laba macallin lagu dhigay hal macallin lagu dhigay waqti waxay soo martay aysan macallimiinta meesha ku joogta aysan wax macnaha fulintan ahana ay meesha ku shaqaynayaan iyadoo ka doonaya keliya inay wadada ka saaraan jahliga maantana waxaa moodaa sabrkoodii iyo dulqaadkoodii iyo waqtiga ay ku soo horeen maantana ku guulaysteen baa meesha ka muuqata runtii waa la leelleecaynay hawsha maanta meesha maraysay laakiinse waxaa ilaahay subxaana watacaala noogu gargaaray Nuur Foundation oo ah laftarkooda dad ummadda iyo bulshada waxbarashadeeda iyo sidii ay horumar u gaari lahaayeen uga fakaraya maantana waxaan leenahay dhammaantood aadday uga hadsan yahayn waqtigaasaan soo marnay waxaa weeye runtii waxaan leenahay sabra dhammaan nabada waxaan leenahay loo sabro waxbarashada iyo waxa weeye sidii qof walbaba ilmihiisa looga dhalan lahaa waxa dadka maanta waxaa fiican waa aqoon dadka waxa wax tara oo maanta waxaa fiican waa aqoon ilmaha waxa weeye ilaahi subxaana watacaala isagaa ballan qaaday saaqadiisa idinka iyagana ilaahay ballan qaaday subxaana watacaala laakiinse waxa lagaga baahanya waxa akhir lagu guurayo oo ah tarbiyada ilmaha aqoontiisa iyo cilmigiisa cilmi cibaada dhammaan waxaa lagaa rabaa insha allahu tacaala inaad kor u dadaashid oo aad shaqo alla ugu dirto beriis ilaahay subxaana watacaala kafaalo qaaday marka waxaa isku xoojin waxaan jecel lahaa dhammaan bulshadu inay u helanaato ay u dadaasho sida ilmahooda maanta wax ugu soo bari lahaayeen
xafladatan maanta meesha ay fadhino kharashka iyo dhaqaalaha intaa leeg ee galay runtii dadka ku bixiyey cid meesha kama dhigito ilma iyaga ay dhaleen oo maanta meesha u dhigta ma jiro laakiin runta waxay dareemeen wadciga jira iyo waxaweeye dadqasho ay ka danqanayaan ummadooda innaguna waxaa la rabaa kaalintii marka aynu ka qaadan lahayn kaalintii inagaga beegnay dadka hawsha inoo soo halgamay oo meesha maanta banniga nasiibka ay u yeelatay waxa weeye inaynu ku soo dhaweyno dhacdo furan inaynu intii tabarteena waxa weeye wixii aynu ka geysan karno aynu kala harin runtii waxaan leeyahay waqtiga waxoogaasiinu u daawayn ilaah baa ku mahadsan jalla jalaaluhu inuu soo waafajiya xafladatan munaasabadatan isugu jira labada arrimood oo kala ah xil wareejin oo ay xil ka wareejinayso shirkadii dhismaakan Liban Trading Company iyo furitaan dhammaan dadkiina ka soo qayb galay aniga oo ku hadlaya magaca shirkadda Liban Trading Company iyo kayga gaarka ahba waxaan idin soo jeedinayaa mahad iyo bogaadan aad u fara badan intaa ka bacdi munaasabada dad badan baa hadalka iga dambeyn doona insha Allah ta'ala laakiin waxaan ka hadlayaa kelmad aan ka leeyahay insha Allah ta'ala shirkaddu waxay fulisay mashruuca kan waxaa ka horeeyay deeqdii ay bixisay Noor Foundation oo qandala dugsiga laga soo dhisay oo ay soo fulisay shirkaddu oo imka wuxuu noqday naajax dugsiga kan imka kana waxa weeyaan mashruucii labaad ee Noor Foundation ay inuu ku deeqday lacagta ayna fulisay shirkadda Liban Trading Company haddaan ka warramo marka iskuulkan masaaxadda uu fadhiyo deyrka horeeto waa konton inta dhisan waxa uu yahay cabirkeedu 32 qolka ka dhisan waa 8 qol oo isugu jiraan 6 galaas oo ah waxbarasho hal qol oo ah bakhaar hal qol oo xafiis 4 musqulood 2 musqulood ay gabdhuhu iska leeyihiin iyo 2 musqulood ay iska leeyihiin wiilashu berkad marka hore naqshada waxa noogu jiray berkad kordhisa laakiin markaan ku fikiray meesha jawigeeda waxa weeyaan waxaan u fikiray inaan berkad hoos u qod leh inaan u qodno insha Allah برميل اسمها ده سكول كوها ويا وأوجدانين إلى هوا كمر خاندية تدوينون وكمر كعيانين وحباش يشرح مايو مكان الحمد لله رب العالمين حلكينا لساري كشركة الآن وأي نودي في نور فونديشن إلى هاي وحنفله وأنو أسطورة إن شاء الله تعالى تدوينها يا كمر خاندية كدونا أنت كذب إن شاء الله تعالى إلى هاي الرمات أمورات النصف الذي أياكم باتن أنت كذب لبا الرمات ayaan idin kula dardaarmaya anigoon hadal ku sideeraanayn hal waxaan kula dardaarmaya reer balidid halna waxaan kula dardaarmaya raggan mashruuca Noor Foundation haddaan ku hormaro Noor Foundation waxaan leeyahay wax badan baa qabateen mashruuca aad qadar ka soo abaabsheen ee aad ku soo hirgalay imikana waa naajax ilaahay waa ku mahadsan ajarkeeda xasanaadkeena miisaankeeda xasanaadka aqal Allah idinku daro ayaan leeyahay inta kadib waxaan leeyahay Noor Foundation ahaan dadaalka ka sii badiya oo dadaalka sii labanlaaba oo baahidu way farabadan tahay oo meelo badan bay ka jirtaa insha Allah ta'ala inta kadib reer balidid waxaan leeyahay iskuulka quruxda badan baa leedin dhisay ilaahay waa ku mahadsan waad nasiib badan tihiin nasiibkiina xagsada midooba wax wada qabsada iskuulkiina ilaashada dayactirta wixii qaranqal keenaya ama iskuulka kharibaya ka ilaashada inta ayaan ku soo gabagabeeyaa waa mahadsantii wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت كذب وحن كنت سنة هنا وريجيو فرحة وأنكو وريجيو ماذا معمرها إن شاء الله تعالى النجح ونكلا جوجو شيخ عثمان دايرة فليتوب إما كان واحد قدوسي فريه أنا جو كل الله يا شركة الليبان ترادين كمباني ويجحل وريجي فريه أن إن شاء الله تعالى يحبكم مثلا مسؤولية يشارك إلهي سبحانه وتعالى نوصل فضلي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خير الجزاء. هذا لو حنقص دوينا يا ميكروفون ككرملاء الدكسية شيخ محمد عثمان يا نقص دوينا يا محمد عثمان محمد فليتفضل مشكورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maamulka degmada iyo gudoomiyaheeda nabadoonnada iyo waxgaradka culimada iyo aqoonyahanka macallimiinta iyo ardada marti sharafka meesha ka soo qayb galay rag iyo dumar
صغير iyo كبير dhammaan waa salaamaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام horta anigu way wada garanaysaan oo kiisu sheegi maayo markii laga reebo 10 jirka wixii ka hooseeya waa laga yaabaa inay say garanayn laakiin waxaan idin sheegayaa waxa shaqadu tahay oo aan meesha u imi anigu horta shaqadu waxa weeye macallin baan ahay muddo 30 iyo dhowr sano ah ka soo shaqaynayay saaxada waxbarashada waxaan soo maray macallin waxaan soo maray maamule adeerna waxaan ahay kormeeraha dugsiyo dhowr ah oo buusto ku yaal iyo kan qandala ku yaal oo Nuur Foundation dhistay iyo kan aan hadda maanta joogno ee xafladeena u fadhino horta intaasaan ahay inta markaan sheegiyo salaan kaga soo gudbo waxaan jeclahay inaan warbixin yar oo kooban ka iraahdo nidaamka iyo habka iyo systemka isku ku shaqeynayo iyo wixii aan ka ogahay oo maanta idinka mugdiga kaga jiro inaan idin cadeeyo horta iskuulkan ay mujoogno magaciisa waxa la yiraahdaa Xaaji Cabdullaahi Primary School beeldaajahani hogaaminta fiicnaa ee muddada dheer dadkiisa iyo dalkiisaba naftiisa iyo maskaxdiisaba u soo huray hogaaminta fiicana lahaa ayaa lagu xasuusan doonaa insha Allah magacaasi waa beeldaajaha magaciisi Xaaji Cabdullaahi magaca iskuulka marka inta ka gudbo waxaan jeclahay warbixin yar oo iskuul ku saabsan inaan wax idin ka sheego iskuulkan horta aanu joogno dad badan oo meesha jooga hadda ka hor waxay u haysteen inay hay'ad dhistay ama waxay u haysteen inay dawlad dhistay iskuulkan hadaba dawladna ma dhisin inooma dhisin hay'adna inooma dhisin balse waxa ay noo dhisay dhalinyaro deegaankan aynu ku noolahay ka dhalatay oo dibadaha ku nool siiba dalalka Yurub waan ka xusi karo dalka Ingiriiska oo kale iyo dalalka Khaliijka oo aan ka xusi karo dalka Imaaraadka Carabta iyo Cumaan Sultanada Cumaan goormay dhiseen kadib markay ogaadeen inaan dalkan cid u maqan dawlad hadday tahay iyo hay'ad hadday tahay midna toona aysan jirin ilaahay abuuray iyo wuxuu iyaga ugu soo dhiibay mooyaan aad bay ugu mahadsan yihiin ilaahayna ka sawaabiyo iskuulka marka hadda saane yaa maamulaya maamulnimadeeda waxa ka wakiil ah oo ay u xil saareen dallada waxbarashada siiba maamulka dugsiga Najaax waan hadda maanta idin kala joogo oo iiga sareeyo madiirka caamka ah ee la yiraahdo Abshir Saciid Faarax waxa kale oo iskuulka loo sameeyay oo la shaqeynaya guddi aad iyo aad si fiican loo xulay oo muxuu ahaay howlkar ah oo 9 qof ka kooban oo rag iyo dumar isugu jira oo waxwaasha iskuulka la soconaya caqabaad ka hor yimaada wax ka qabanaya khilaaf yar haduu dhaco iyagana muxuu ahaay sulxinaya oo maamulaha iyo iyagu ay soo shaqeynayaan iskuulkan ujeedooyin badan oo ujeedooyinka iskuulada leeyihiin oo dhan buu yeelanaya balse ujeedo u gaar ah baa jira oo laga leeyahay waxaa ka mid ah dadkan reer baldin ee reer magaalka ah ee markii bisha 9 la gaaro boosaaso u qaxaya markii bisha 6 la gaarana boosaaso ka saxayo halka soo qaxaya in socodkooda iyo guurguuristooda la yarayo dadka reer guuraaga ah ee reer miyiga ah ee xoolo dhaqatada ahna loo suurta geliyo inay maalintiina reerkooda ka warqabaan habeenkiina ilmahooda wax baranayay ka warqabaan sidaan ogsoonahay meesha ugu fog oo baa la yiri balladin loo digo 2 saac baa loo socdaa marka ninka waxa uu suurta galaysa inuu maalintiina reerkiisa ratigiisa awrkiisa wixiisa soo ka warhayo habeenkiina uu yiraahdo maadhow maxaa lagu dhigay balitus taas ayaa looga jeedaa haddii reer baldinow haddii iskuul la idin dhisay oo cusbitaalkii sida la sheegay oo warku ugu soo gaarayeen la idin dhisi doono oo iskaarsiin la idin keenay oo aad caano jaban iyo hilib jaban haysataan oo qoryo bilaasha iyo biyo bilaasha haysataan oo hawa nadiifa iyo cimilo aan kuleel iyo qabow midna ahayn iyadana muxuu ahaa normal haysataan waxa boos ku aadaan oo magaaladan uga tagtaan
marna ugu soo qaxdaan marna uga qaxdaan aniga waxay la tahay inaysan meesha ku jirin taas waa ujeedooyinka gaarka ah ee iskuulkan meesha loogu doortay tan kale waan ka hadlay waan jeclahay inaan ka hadlo waxaa ka mid ah iskuulku wuxuu leeyahay kharash maalinla ah oo maalin kasta taagan iyo kharash bilo ah oo bil loo taagan buu leeyahay haddaan waxaad idiin sheego kharashka maalinlaha waxaa ka mid ah jeesada wax lagu qoraa ka mid ah jeesadaas maalintii baakad barkeeda baxa bilahana waxaa ka mid ah mushaharka ay macallimiinta maamulka iyo shaqaale hoosaadku ay qaadanayaan kharashkaas bilaha iyo yoomaha markii la isku daro mid qolo kelihii u babac dhigi karto maaha haddii la yidhaahdo shicibka reer balridow bixiya adigu keligiin ma awood kartaan haddii aynu nidhaahno nuur foundationow naga bixiya lacagta bilaash baan iskuul ku dhiganaynaa qandalaa waxaa ka dhacday iskuulka waxa la yidhi bilaash baa lagu dhiganaya markii la yidhi bilaash baa lagu dhiganaya ayaa waxaana la yidhi sidaas oo kale xafladda waxaana ka yidhi buugaga iyo qalmaantana baana loo gado buugaga been ii sheegmaa wax dhacay marka maadaama iskuulkii kharashkiisu wax badan yahay waxa la isla gartay in la isla kaashado contribution baa la dhahaa oo muxuu ahaayey ardada free laga qaado marba in bay ahayd markii ugu horreysay Nuur Foundation waxay calaamadisay in $100,000 ama $3 $100,000 ayaa $3 u dhigmee in la baxsho balse kadib markii cabasho naga soo gaartay dadweynaha reer Balidin warar meel ay ka yimaadeen aan loo qoon oo oranaya iskuulka bilaash baa lagu dhiganayaana ay soo baxeen waxaan u gudbinay mar kale in arrinta iyada ah dib u noqosho laga sameeyo oo lacagtaas $100,000 oo laga cawday wax laga dhimo waxa mar kale nala soo faray in lacagta laga dhigo $2 ama 60,000 shilin waliba $2 baan soo faray doolarku waa isbedelaa mar buu kacaa mar buu digaa maalmaha kan waliba hoos buu sii socdaa marka arrintaas iyada ahna hadda waxay la tahay iskuulku horta wuxuu furmaa wuxuu sanad dugsiyeedkiisu waa 9 bilood 9 bilood wey 9 bilood oo min $2 ah waa $18 $18 neef ahmiya oo arigeena inooga dhashay oo aynu iibsanay 3 meel kameel wey dalool lacagtiis wey haddii neefkaas oo iska dhanna ama dawacaada cunta ama isagoo guriga ku jooga ayaa baraajo ku dila haddeerse wiilkaagii baa sanad dhan wax kugu bartay haddeer waad arkayseen sida ragga dhalinyarada ahi carabigii iyo ingiriiskii iyo anaashiidii u akhriyayeen ka waran hadduu tan iyo maalintii ari la joogo muxuu maanta sheegi lahaa waxba ma sheegeen taasina waa tan dhanka kharashka iskuulka manhajka laga dhigaayo waxa weeye manhajka dalladda waxbarashada Puntland FBM baa la dhahaa waxay ku baxaysaa luqadda carabiga marka laga reebo 2 maado oo aan carabiga gelin oo ah 2 luqad ah oo midna uu yahay ingiriis midna uu yahay Soomaali iskuulka waxaa ka hawlgalaya macallimiin waayo aragnimo iyo khibrad dheeraada ku leh habka ardayga ilmaha wax loo fahamsiiyo ma aha ninku cilmi kale inuu leeyahay cilmiga habka uu u gudbinayo waa hab lagu tababarto oo macallimiinta lagu tababaro marka waa macallimiin tababar loo soo siiyey qaabka ardada ay ugu gudbinayaan cilmiga xaggiisa jira isaga ilmaha maskaxdiisa ugu shubaya aqoontoodana ay ku siman tahay macallimiintaas ilaa heer jaamacadeed heer maxad ugu yaraan ninka ugu hooseeya uu yahay nin heer dugsi sare ka baxay intaas markaan kaga soo gudbo warbixintii iskuulka ayaan waxaan jeclahay inaan Nuur Foundation oo ah jamciyadda khayriyada ah ee inoo ku deeqda iskuulada waxyaabo kaleeto wana inoo soo wada sida uu sheegi doono ninka ka wakiilka ah oo ka mid ah hadda inala joogo Bashiir oo iga damayn doona hadalka mid baan leeyahay midna reer Balidin iyo nawaaxiga Balidin ku xiran baan leeyahay midna annaga ka macallimiin ahaan baa ballan qaadayna mid baan leeyahayo Nuur Foundation baan leeyahayo waxaan leeyahay ajar iyo xasanaad Allah idinka siiyo arrinta aad qabateen annaguna abaal baan idinku haynaa
إلهينا أين كأجر سيبان ليهاي لكن دلك ضيعة يدرحمنا كم مغضى كما حرة إسقوك كلية واحد جرا بيلعان باكجرته وواحد نوبة عنهاي فرق أنه بيقصر سارسنه دل أبا ولا بيلعي مجرو بس واحد ويني فرق تياله يضد على النظرة وبيان نظرة سارة دلول بواحد نترى ممكن نبين ملح أنت دور مع المدحوات نوكا وحكومة الأغان أيه عن ملح بيو لكن تاسي أنا ما هي وعن نتاي إن نوت ذا شيء أنا لهم وأكلنا نوبة عناي إسبتال بانوبة عناي هذي غفر كجودو وفر بوساسة لولا على وإن وقعت خرج كمنال كنا إن أنا بوساسة سيسعد كليا أنا كخرج كرينه تاس وحن ليهاي متكلم وحن ليهاي ولا تنين زياس بردا إذنك رجع يجا نومكن محمد هاي نجور جيسان وأنت سلا أذكر أيشان وكله يجونا نوقف بالمدان الدنيا كلها على يدي وهو مغيّر دلكيسا يدلكيسا هذول نيكو وحي ولو دلكيسا كله كونيو ودلكيسا يدلكيسا وبالله دكاسوا دهم بالله دهم وإذا سجينا سيدا سوكايتو نوقف بالمدان وبعدين أنا وقف قاتا أنت أسوأ ليهاي لأن أنت دياس برا ينور فاونديشن بالله مد وحن ليهاي رب اللدين بالله وحن لله رب اللدين فرصة غالية كفايدة إلى هاي الناس وطنتي ما ربنا بانهرين نسوكنا يدسي وواحدين براء دبنا بعيله وهايستان إن قفكو إن ده كريه وحكو أركو قفكو بنانا كإن ده كريه وحكو أركو لكن إنه وحي وحركان مركي أديك سدان إفتين haddii qol mugtiya oo inda faraq gelisa la idin geliyo adiga iyo nin aan inda qabin isku mid baati waxa sida la mid ah ninku aqliga ilaahay siiyay haddii uusan cilmi ku darsan aqligiisu waa sida aqli aan cilmi lahayn waa sida nin inda lahaa oo ku jira galayha qol mugdi ah meel mugdi ah miyuu arkaya Umarku cilmigu marka waa wax محوها واحد رجع كلا سارة هو كل أهران كان علمي قبرته قرآن كان شيء وهل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مركز تاسنا رب الزبلة مثنا أنا قابل غاية أنا ومعلمنا وأنا بلغ غاينا أدانا معلمتنا إلى أن نشغلنا قلنا فري قلنا دمي إنه هرينكي صدق شفتنا شغلنا وأنا ضد على إنه جهلك إنه جهله وعلو وقدرا ابن آدم كليه مركا واسي أن إذنكم عاونتان ومعانا وعاونتان هدي أن إذنكم نموت ماتان ووحي أن يكدنا يبقى أن ينبري أترادان حنو فايدي مركا هدي كلاسي أنه ودوحوما غبنكرو وقدرنا يبانا مانيا انت أسان كسو قوغوينيا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد جزاه الله خيرا الله سبحانه وتعالى كابا المريو هدنا وحن كسو دوينيا ولا لهن النور فاونديشن او انو دتي مدرسدان aynu joogno madrasada xaaji Abdullahi Primary School wakiilkeeda oo magaciisa la yiraahdo Bashiir Maxamed Saalax oo isagu inoo jeedin doona kalimaad kooban safar dheerna dabcan inoo soo maray في قلبتي ونولا وحالينا يتفضل مشكورا بشير محمد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد وحن دمان وضياشا قدوميها هويوينكا أبياشا دليرada waxaan idinka wada salaan ku tolan lafta kana soo goday ka shaqeeya laabta Lord Foundation waxaan idin cadeynaya in idin jecel yihiin waxaan idin sheegaya in ay naf iyo maal idin hureen waxaan idin cadeynaya oo idin sheegaya in ay idin ka doorteen dhowr iyo 30 tuulo oo idinka in ka hormariyay bifadlillahi wa bi'awnillah inta marka laga soo gudbo salaantaas qiimaha badan oo aan idinka sido Lord Foundation waxaan jeclahay inaan ka hadlo waqtiga keen isugu dambeysay waxay 2009 bishii 7
markaa waxaanu ahayn laba arrimood baan u soconay arrinna waxay ahayd arrin ah iskuulkii qandala laga furay in loo soo jamciyo dad oo waxaa laga fikeraya markaa talow ma la helayaa dad iskuulka xaadira arda 100-200 ma la helayaa iyo inaanu soo qiimayno dhulka iyo dadku siduu yahay warbixinta aanu gudbinay waxay ahayd in uu yahay dadkanu dad istaahila in wax loo qabto sharaf leh ehlu karama laga bilaabo barako ilaa unuun ilaa inta aanu marka dhacdaar meel alla meel kale waa ka nabad badan tahay waa ka ixtiraam badan tahay dadku martida waa jecel yihiin waa dad looga gabi karo wixii lagu bixiyo annagu warbixintaas aan gudbinay natiijadana waxay noqotay in la aqbalay oo dadkii aanu sii dhiirigelin ragga Nuur Foundation inta marka laga soo gudbo waxaan u gudbayaa Nuur Foundation waa maxay dadka qaarkood waxay u haystaan hay'ad lacag badan haysata qaarna iskuulka ku dhistay qaarna nimanka dhisaya cuneen qaarna macallimiintu iska cunaan qaarna jeebka wali aan ku haysano bay u haysataan waxaan idin sheegaa sida tahay xaqiiqadu waxay tahay Nuur Foundation waxa weeye wiilashiini waa abnaaw hadhihi almantaqa wiilashiina aad koriseen oo fikiray oo dayaca iyo dacdarrada iyo waxbarasho la'aanta dhulkeena ka jirta arkay ayaa tashaday waxay ka fikireen in ay dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan waxay ururiyeen lacag intaana lacag urunta bilaabeen waxay marka hore bixiyeen hami inay ku fikiraan arrinta waxay dadkaas isugu jiraan aqoonyahan iyo xoogyahan dad aqoon ku shaqaynaya iyo dad xoogooda isticmaalaya labadaba inta marka laga soo gudbo Nuur Foundation marka laga hadlo arrimahoodu markii ugu horeeyay waxay ahaayeen al-humum hami in lagu hamiyo dadkeena iyo dalkeena maadaama dawladda dhexe meesha ay ka baxday 20 sano wadan kasta waxa u shaqeeya oo dadkiisa u adeega dadkii u dhoofay ama shaqada helay ama dhaqaalaha helay baahantay waxbarashadiisa iyo caafimaadkiisa maadaama kaalintaas ay maqan tahay waxa muuqatay in waqti la siiyo lagu fikiro marka hore waxay ahayd al-humum shirar telefono kulamo gudaha iyo dibadda wala sameeyay marka hore saas waxay u gudubtay al-afcaal ficil wuxuu ahaa in lacag la bixiyo akoon la sameeyo lacag la ururiyo Yurub Nuur Foundation kuma ekaan imaaraadka oo laga asaasay waxay ahayd nuqtada intilaaq Yurub in loo diro cid oo dadka la wacyi geliyo oo la yiraahdo dadkeena waa baahan yihiin iyo dalkeena taasoo natiijo badan keentay marka waxay u baahan tahay marka afcaash ay hirgashay waxa hirgala iskuulka qandala waxa hirgala iskuulka balidin waxyaabahaasna marka laga soo gudbo waxa kaalin weyn oo aan la qiyaasi karin ka qaatay liibaan tireen kabir lama yaraysan karo nin baahidaadii 10 sano waxaan u baahnaay si hadaa qof tiraahdo oo isoo horumaray maanta waa adag tahay inuu ka yeelo iskuulkii qandala annagoo aanay wax lacag naga hayn ayay waxay bixiyeen $15,000 dib aan ugu soo ururinay waan ku soo salimnay kan hadda waxay bixiyeen lacag dhan 45,405 lacagtooda waxa gacantooda soo gaaray iminka 20,000 kaliya waxa ka maqan 25,000 iyo inta kale lacagta iskuulka waxa ballan qaaday inay bixiyaan dadka Ingiriiska jooga oo ka tirsan Nuur Foundation waxa marka aan aad iyo aad idinku mahadcelintaas ay base u tahay man la yashkuru naasa la yashkuru Allah sababtu waxay tahay hadaa dayaafad samayso oo qada samayso oo qadadii qof ku yimaado aad weydo qadadaada cuna waxay ila tahay inay xaaladaas ku adkaanayso laakiin hadii aad iqbaal samayso oo guri dhistay oo macallimiinta diyaarisay oo dadkii soo xaadireen sharaf weyn bay noo tahay waana idinku tixgelinayna mustaqbalka hadii ilaahay yiraahdo afcaasha marka laga gudbay waxa loo gudbo xalay albashaa'ir fi المستقبل بشائر كسو سocda ilaahay idankiisa wax kamid ah cusbitaalku anigu sidaan xogta ku hayo wuxuu u socdaa qandala hospital weey waxaan u maleynaa sheekhu inuu yiri balidin anigu sidaan xogta u hayo marka ugu horeysa waa qandala waxaana ku dhawaaqay nin la yiraahdo Dr. Khalif Bile oo ah shakhsi caalamiya nin muhiim ah nin wax badan qaban kara sida aniga la sheegay waa shakhsi caalamiya waxa arrintiisu ahayd marka hore inuu tijaabo naga qaado war inaanu diyaar u nahay dadkayagi iyo dalkayagi inaanu wax u qabano iyo nin kale taa waa ku guulaysanay lacagihii ballanqaadkii anu intaan ogaa 16,000 bay maraysay akoonkina waxa laga furay Dubai lacagtii ugu horeysayna waa lagu riday kaasuna waxay noqonaysaa marka haadihi khudwa wa tatbacuha khudwat ukhra talaabooyin kale iyo bashaa'ir baa isdaba jooga ilaahayna waxaan idinka rajaynaynaa inuu ina waafajiyo kulligeen Nuur Foundation waxaan leeyahay hawl kama daale wali waa hogadii waxaan inta ku darayaa 20 sano dawladdu waa maqan tahay kaalinteena inaga leena ka sugaya
ولي فريق ما قدنا فان ولا فريق ما قدنا انت عشان كسو غبغبينيا وبالله التوفيق وجزاه الله خيرا خير الجزاء وكاجنا وهو وكيل كنور فدريشن بشير محمد صالح أبدأ waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada Banadiid Sheekh Xamed Saciid Nuur oo insha Allah taala kalimaad kooban inoo jeedin doona tafadhal بسم الله الرحمن الرحيم dadka walaalaheena oo dibadda inoo jira oo ku fikiray dalkooda iyo dadkooda inay wax u qabtaaneen waxaan u jeedinaynaa salaan wanaagsan ilaahay naga gaarsiiyo midda xigta dugsigan sharafta leh oo ay inoo dhiseen walaalaheen galabtana xariga laga jaray waxaa loo baahan yahay reer Balidhilow inaynu hanano soo dhaweyno insha Allah karaankeena ka qaadano taasna intaas baan ka leeyahay tan xigta meeshaan waa magaalo weyn ummad badan baa ku nool baadiye iyo magaalaba waa leedahay waxyaalo aad u fara badan bay u baahan tahay sidaad ogsoon tihiin waxa ugu daran biyo bari baa ceelna loo qoday hay'ad baa noo qoday tadaam bay ahayd hay'adaas ceelkii guul kama gaarin 250 mitir bay qodeen biyihii 3-4 jeer bay dhaafeen natiijo kama helin mishiinkii ceelka iyo dhuumihii iyo beebabkii alaabtii waa haysanaa taa waxaan ka codsanaynaa walaalaha nuurka dheeshin oo dugsiga noo qoday ceelkaasna inay nagu caawiyaan taasna waa ka doonaynaa caafimaadka sidaad ogsan tihiin waa lafdhabarta koowaad gasaan ilaa halakan ilaa qandala ilaa moodiye ilaa intaas oo dhan rug caafimaad ma leh qofku hadduu jirado baawur baa boosa loo soo ingeeraa ilaa $2,000 baa ku baxa taasna waxaan ka codsanaynaa dhulka dheeshin caafimaadkii waa lafdhabartii waa kii loo baahnaa si ay hawshaa noogu qabteen waxaanu ka jecelahay caafimaadkana inay noogu daraanin midda xigta inagu reer Balidhilow waad aragtaaneen dugsigii galabtay xilkiisii inagu inu ku soo wareegay macallimiintii waa inoo joogtaa kormoorihii waa inoo joogaa waxa loo baahan yahay rag iyo dumar inaynu hanano qaybta aynu ku leenahay soo dhaweyno wax la qabano saas baa loo baahan yahay dhinacii lacagta waa ka wada hadalay maantay waxaanu isla gaaray ardayga in laga qaado 60 shil taas 60 kun taasna waa u sheegaynaa dadweynuhu inay og yihiin waa loo baahan yahay hadalkayga waxaan ku soo koobayaa walaalaha iyo nuurka dheeshin oo dibadda noo jira oo hawshaa ballaaran noo qabtay oo dugsigaa quruxda badan noo dhisay insha Allah iyaga iyo halkeedaba waa u ducaynaynaa ducadaasna Allah gaarsiiyaan leena waxaanu kaloo sheegaynaa macallimiinta noo timi oo dugsiga noo fudhaysa oo iyaga meesha looga tagaayo insha Allah biidnillaahi tacaala annaguna inaan tabarteeda soo dhaweyno wax la qabano waajib bay nagu tahay iyagana hadee waxaanu jecelahay hawsha ay u socdeen qaybta ay ku leeyihiin si qurxoon inay u qaataan ardaydii waa diyaar waa dhisan tahay waa inoo joogtaa waad aragtaaniin markii dugsigaan la furay oo galabtay xarga laga jarana waxaan malaynaynaa dadka reer baadiyaha wuxuu la dhaqatada ahi inay dareemayaan waxbarashada ardaytan ka badanna insha Allah waa rajaynaynaa warkayga waxaan ku soo koobayaa oo ku soo dhammaynayaa aan wada jiro nuurka dheeshin oo aanu ka sugayno hawlo badan iyo annagoo diyaar u ah meesha tan oo meel khayr oo nabadweyna ilaa qandala ilaa albaraka inta ka dhaxaysa dadka jooga waa dad ehela oo isku mid ah oo dugsigan u wada baahan meel kastoo ay joogaan baa cidii timaada waa ku soo dhaweynaynaa isaga mid baanu nahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلنا يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.
gudoomiyaha culimada macallimiinta kormeerka inoogu timi oo meel dheer boosaaso gobolka inooga timi oo intaasoo kiiloomitir soo madhay murwooyinka ka soo qayb galay xafladan bulshada qaybaheeda kala duwan macallimiinta iyo ardada sharafta leh oo haddeer horteyda ka muuqanaysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu salaanka bacdi waxaan u malaynayaa bogcaddan hadda galabteenu taagannahay oo ku taal ballidhidin bishii shanaad dhallinyartaasaa kubadda ku cayaari jiray maantana haddee ubaxa ka muuqanaya iyo aragtida ka muuqanaya waa u jeedaa ilaah baan ugu mahadinaya isagaa mahad iskale ilaah baa mahad iskale u sugna waxaan kaloo u mahad celinaynaa bishii shanaad meeshii garoonka ayadoo lagu cayaarayay oo galabta indhahaasu ka muuqanayaanin dhallinyarada u dhalatay deegaanka oo u hudhay maalkoodii u horay oo ka muujiyey sharaftaa galabta ka muuqanaysa ka muujiyey iyagana waa u mahad celinay waxaan kaloo u mahad celinaynaa intii hawshaan qabatay oo u hawlgashay oo dhismaha wanaagsan oo iskoolkaas halkaa ka dhisan ka shaqaysay oo ama degmada ha joogto ama gobolka ha ka timaado ama meel kastaba ha ka timaado hawshaa qabatana waa u mahad celinay intaa kadib waxaan u malaynayaa waqtigu waa gaaban yahay anugu hadalka ku dheeraan waa laynoo sheegay آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان wuxuu ahaa isbitaalkii qolaha eeda ayaa dhistay iminkana waa u jeedaan dayaca ka muuqanaya kadib markii dabayl ay la tagtay tasniigii wax daryeelna uusan helin baaba iyo mataqaana darxumada aad ujeedaanba ayaa ka muuqanaysa insha allahu tacaala haddana waxaanu mataqaana isdaransiinay in aanu bahda Nuur Foundation u bandhigno insha allahu tacaala maxaa yeelay meeshu haddaynan lahayn wax isbitaal lahayn imkaaniyaad mataqaana daruuriga ayay ka mid tahay إن شاء الله تعالى نور فونديشن iyo dadka taxadarayna iyo waxa ka filan karajeen إن شاء الله تعالى inay intaqaana isbitaalkan dib isku sameeyaan إن شاء الله تعالى waxa yeelay waxa weey waa waxyaalaha muhuraanka ah oo intaqaana bulshada asaasiga u ah sida daraadeed dayacaasay magaalada ma leh wax isbitaal ah oo dadka mataqaana hadii ay korooyin lagu eego ama lagu daweeyo ma jiro sida daraadeed إن شاء الله تعالى ilaahna waxa ka rajeynaa إن شاء الله تعالى dalabkayga iyo codsigayga إن شاء الله تعالى inuu noo aqbalo dadkaas khayriyaadka jecel وإن شاء الله تعالى سكولك نوضع يعتري أو نونا هجاجي إن شاء الله تعالى هنا إن شاء الله تعالى وصل دقيقة إن شاء الله دكاس خباريسا وإستثال عن سيد رحمة الله يكون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان
ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وايدي horta wuxuu baran jiray umkana waa saas uu dambeeyay yahay wax hadeer waa beeshin weeyaan oo wax hawlo oo ka socota ma jiraanin sida uu xiran yahay ayaa ka dhaba markuu dayacmay umkana wax barashadii waxa lagu sii wadaa dugsi kira ah insha Allah tagana waa doona hadii Allah uu diro ogolaado wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh وكما هذا كان هو موقع كده شهر كان تصور كفرها إذا تصني ولا يقول كي هو سدح لأن ما هرب لحاجري ضيع خيار كم مغنية إما كان واحد حول لو غبطه حولها أنا إما كان واحد لو غبطه وشي كانت أوكرة وهانجي دكتور sidaas ayuu u dhaadhacay hadda markay daryeel la'aan iyo ka fikir la'aan ay ku dhacday oo insha Allah ta'ala hawshiisii uu gabay sidaas ayuu noqday billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh somodo sigma kalanta qoraaladaas iyo maartay si fiican way soo baxaan qoraalada insha Allah dakhul ma كان هو دكسي برايفيد oo gaar loo leeyahay kadib markii dugsigii hoose dhexe ee Baledilin uu gabay shaqadiisii ayaa la door biday insha Allah ta'ala in dugsiga برايفيدka ah wax lagu sii dhigo ilaa muddo 2 sano ah ama 3 sano ah dugsiga tan lagu sii waday inta ka loo dhisay insha Allah ta'ala caalimiintii iyo ardadii insha Allah ta'ala imika waa laga fasaxay laakiin waa dugsiga hadda rasmiga ah ee shaqada ku socoto waana dugsi kira ah waana dugsi gaar loo leeyahay insha Allah ta'ala وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان